دكتور عبد الله حسن kusoo dhawow qolka 1960 codka shacabka ama ummadda Soomaaliyeed deriska ama casharka aad maanta noo soo diyaarisayna diyaar baan u nahay waana ku salaamaynaa waana ku soo dhawaynaynaa ku soco السلام عليكم horta marka hore dhamaan waa idin salaamaya qoladiina waayeelka ka aqoolkana aad baan ugu mahadnaqaya waa inoo bilaabaya laakiin kaftan yar baan horta horeysiinaya waxa jiray nin la oran jiray jalabsade oo heesaa ahaa markaasaa waxa la yidhi magaaluu yimi reer miyiguna ahaan jiray marka magaaladii mala aroos iyo wax ka dhacay buu ka qayb galay oo nin heesaayo caan u ahaayo waa ka yara xumaatay markaasaa isagii loo heeso waxa la yidhi jalabsade maqnaantii iyo maqashii uu xidhxidhi jiray iyo miyigiibu ku fiicnaayo allahayo magaalada maamuusma kaga dhacay marka waxaan uga socdaa war haddaan sidii jalabsadee noqdo magaalada yimi oo wixii aad iga fili weydeen ay arrintu dadku markaanay is arkayn waxa la yidhaaho numberban communicationka ayaa in badan wax la isku gaadhsiiyaa fara ha noqoto dhaqdhaqaaq ha noqoto haddii kale image la arkayo marka dee hadal keliya sida waxaan oo kale la isugu sheegaa waa yaro adag tahay marka halkii aad iga filayseen de haddaan gaari waayo raalli baad ahaanaysaan bismi illahi raxmaan raxiim waana inoo bilaabayaa waxaa laygu yidhi oo layga codsaday macdanta inaan ka hadlo specially macdanta Soomaaliya marka de macdanta horta intaanan gaarin waxaan jeclaa inaan sii taabto bal waxaan aynu u naqaano universe-ka aynu ka mid nahay inagu universe-ku wuxuu samaysmay ama age-kiisa hadda la qiyaasi karaa si indirecta 13.8 billion years ka hor compositionkiisu waxa weeyaan less than 5% ayaa normal matter aynu inagu ama taaban karno arki waxa aynu naqaan ka samaysan inta kale 95% waxay u qaybsan tahay waxa la yidhaaho dark matter iyo waxa la yidhaaho dark energy oo labadaba si indirecta un lagu ogaan karo laakiin waxaynu inagu shaqo ku leenahay oo aynu naqaan iyo wax u egtoona aan ahayn intaa haddaan ka gudbo waxa aynu ku dhex nool lahay inagu ama qayb ka nahay waxa la yidhaaho the solar system oo ah qoraxda iyo meerayaashan intooda badan weliba magac Soomaaliya leeyihiin oo Soomaalida hore u tiqiin intaan warka gaaladu ina soo gaadhin at least 7 ka mid ah labada u dambeeyana waa dhaweyd baaba la ogaaday marka dhulku de intaasuu ka mid yahay marka intaana haddii aynu nidhi universe-ku waa 13.8 billion years age-kiisa la qiyaasay dhulka iyo solar systemka absolute age-kiisu waa 4.6 billion years marka half xitaa ma gaadho waa 1/3 buu ku dhow yahay intii universe-ku jiray marka waxaan usoo gudbaynaa haddii alla idmo 4.6 kaasaynu maskaxda ku haynaynaa dhulku jiray waa not million waa billion waxaynu soo gudbaynaa marka universe-ku sida aad maqasheen waxa jira wax theory la yiraaho big bang oo ah qarax waxa aan jirin oo la arki karin ka bilowday quraankana waxa ku jira inay samada iyo dhulku isku dheganaayeen suuratul anbiya aayadda 30aad oo la kala furay marka culimo badan oo islaamka ah qaraxii inuu ka yahay bay u qaateen waana u badanaysaa markii qaraxaasu dhacay kadib waxa kala yaacay de waxa adduunka hadda ka jira oo intaas sii kordhaya oo waliba expansion ku jira ku socda more or less wax light velocity-ga light-ka oo u dhow ku kala cararaya haddana marka dhulku wuxuu ku bilowday isagoo ah kubad ololeysa oo si magma caadiya oo laakiin temperature aynaan dee hadda inagu aynaan gaadhin oo qiyaasin garana karin shidan adigu inkaar ololeysa maxaa sameeyey waxaa sameeyey meteorites ciidda ka badan oo gubanaya ayaa kusoo dhici jiray isagoo markaa moltenka kubadda ah ayuu wuxuu sameeyey wareegiisa iyo meteoriteski oo ka joogsaday oo bombardmentkii ka yaraaday ama joogsaday istaagay ayuu wax bilaabay inuu qaboobo
marka qabowgii uu qaboobaya iyo wareegiina wuxuu dhaliyay inuu separation sameeyo by density waxa marka halkaa ka dhashay 7 qaybood oo dhulku ka samaysan yahay oo culimada islaamka qaarkood yiraahdaan waa 7 dhul oo la inoo sheegay laakiin Allahu a'lam de waa un tafsiir 7 qaybood waxa uu hooseeya qayb la yiraaho inner core oo solid oo waxay ka samaysan tahay 90% waa xadiidku waa 35% weight-ka dhulka dhamaantiis yani waa element ugu fara badan ama curiye af Soomaaliga wax kuma baran oo si fiican uma aqaan raali baad iga ahaanaysan waxa ka sareeya wax la yiraaho outer core oo liquid ah labada marka laga yimaado waxa loo soo gudbaa qayb saddexaad oo la yiraaho mantle-ku wuxuu qaybsamaa 3 waa dhulkii baan ka hadlayaa upper mantle middle iyo lower upperka waxa leeyahay marka saddexda isku xiga waa saddexda ku xiga koorka waxa ka sii sareeya qayb kale oo la yiraaho crust-ku waa 2 qaybood waa mid oceanic crust iyo continental crust marka 7 qaybood ayaa dhulka loo qaybiyaa oo waliba de composition ahaan uu qaybsan yahay crust-ku marka waa dhagax totally mantle-ka qaybta ugu sareysaana waa la mid inta waxa la isku yiraahaa lithosphere oo macnaheedu waa dhagax qaybta bartanka ku jirta aynu xusnay ee mantle-ka oo part yar oo kamidii uu molten yahay ayay intaasu ku dul socotaa dhulku ma taagna de waad ogtihiin oo uu wareega isaga isku wareega qoraxdana waa ku wareega haddana wuxuu markaa qaybta sare ee dhagaxa ka samaysan aynu nidhi waxa la yiraahaa lithosphere ayaa waxay u kala jajaban tahay wax la yiraaho plates waaweyn 12 plate oo waaweyn bay u kala jaban tahay oo marna collision ka dhaco marna kala taga intii dhulku jiray 4.6 million kaas oo inuu qayb dhagaxa iyo qayb liquid yeesho iyo qayb solid iyo qayb uu yeesho ay bilaabatay marna way isku dhacayeen oo intay collision sameeyaan bay continent super continent weyn sameynayeen marna waa kala dildilaacayeen marka waxaynu ka soo qaadanaynaa midda raadkeeda la hayo yani xusi karno waxa kamid mid la yiraahdo Rodinia la oran jiray ama loo bixiyay de waaga ciidama jireen magac uma sameeyeen marka Rodinia waa 1 billion years ka hor 1 billion years ka hor 800 oo milyan kadib yani 200 oo milyan oo sano kadib ayay haddana kala go'go'day marka waxaynu u gudbaynaa oo muhiim hadda waxaynu rabno inaynu ka hadalno waa continent samaysmay around 600 million oo la oran jiray Gondwana loo bixiyay Gondwana laga yaabo inaad maqasheen Gondwana collision bay ku samaysantay waxay ka samaysantay qayb loo bixiyay West Gondwana oo ah Africa oo dhan South America oo wada socda oo dhinaca iyo dhanka kale oo ah continentiska hadda inaga dhinaca kale inaga xiga oo ay kamid tahay India continent ka oo hadda ku dhigay Asia 50 million years ka hor Madagascar Antarctic iyo Australia marka labada qaybood baa isku dhacay Sri Lanka oo island yar ina bartankay ku jirtay labada intaas markay isku dhaceen waxay sameeyeen Gondwana marka collisionadaas Gondwana ku samaysantay ayaa waxa ka bilowday waxyaalo maaragtay waxaan markay isku dhaco dhulku waxa imanaya waxa la yiraahdo waa thermal iyo tectonic waxa ku xiga waxa la yiraahdo metamorphism oo intaanan ka boodin aan idin xusay dhagxantu waa 3 nooc waxa la yiraahdo igneous oo waxay ka samaysantay molten ama magma molten rock ama magma waxaynu magmada u naqaano taas waa igneous midina waxa la yiraahdaa metamorphic oo pressure iyo temperature aad u sareeya oo dhulka hoostiisa meel hoose 10 15 20 30 km ama ka badan bay ku samaysantay oo waxa la yiraahdaa metamorphic rocks
qaybta saddexaadna waxaa la yidhaahaa sedimentary oo waxay ka samaysmaan erosionka labada iyo haddii sedimentary jiray saddexdaba waxii socday oo meel tegay oo deposition sameeyey weeye marka plateskii aynu kasoo hadalnay waxaa samaysmay markii ay collisionkaasu dhacay continentka weyni samaysmay waxaa dhacay wax wada socda oo metamorphism iyo magmatism iyo tectonicsku waa movement isku dhac iyo kala dildilaac iyo wax walba leh marka waxaa samaysmay laba qaybood bay markaa effectkii collisionka Gondwana sameeyey 600 million years ka hor laba qaybood baa loo kala dersaa marka qayb baa inagu aynu daraynayna qaybta waxa la yiraahaa Mozambique metamorphic belt Mozambique metamorphic belt wuxuu affect gareeyay qayb kamida qaybta aynu inagu rabno hadda oo u taabtay Gondwana kamida Gondwana aan idinku celiyo waxay isku ahayd South America Africa India Madagascar Antarctic Australia iyo Sri Lanka iyo qayb yar oo kamida jasiiradda Carabta marka qaybta dhulkeenu meesha uu inta kaga yaalo oo isku dhagan dib u celiya xisaabta intaas oo isku dhagan dhulkeenu halka uu kaga yaalo waa maleynaya qof walba waa u muuqan kartaa marka baad halka maray ayaa marka waxa aynu u socono oo dhan ka dhalan doonaan wadamada marka aynu hadda inagu jaarka nahay oo processkaasi taabtay ama saameeyay waxa kamida Kenya Tanzania Ethiopia wadankeena iyo intii kale oo Gondwana dhanka east-ka inaga xigtay Sri Lanka India Madagascar Mozambique waa ku jirtaa maxay ahayd Antarctic iyo Australia adu aagaas oo dhan marka aagaas oo dhan waxa taabtay arintaasaa taabatay metamorphic beltka la yiraaho Mozambique metamorphic belt wuxuu markaa waxa ka dhashay markaa magmatismka iyo metamorphismka iyo collisionkaas dhacay waxa ka samaysmay minerals fara badan wadamadan markaa aan magacyadooda sheegay Kenya Tanzania Mozambique Madagascar Sri Lanka India Australia Ethiopia iyo Antarctic inta iyo Soomaaliya qofka geologiska ahi marka uu si yani panoramically globally u eego processkan la socdo wuxuu ku xisaabtamayaa wixii meel ka muuqdaba intii waxaasu saameeyeen waxaan aan tiriyay baashu ma wada taaban yani thermotectonic effects kan activities kan ma wada taaban waxa laga yaabaa dalalka qaarna waa wada taabteen qaarna qayb bay ka taabteen midalan Sri Lanka oo ah jasiirad yar iyada completely wuu maray waa saameeyay marka wadamada aynu hadda xusnay macdanta laga helo oo lagu yaqaan maanta waayo wadankeena 30 sano u dambeeyayna cidima baadhin waagi oo waxba laga darsin waagi ka horeysayna waynu garanaynaa cid wax baadha oo badan ma jirin meel la istaagtaagay xoogaa waa jireen laakiin intii u dambeysay waxaynu ka hadlaynaa waa gemstones kaliya maaha macdanta kale ee mesela mineska la qodo ironka iyo cobarka iyo waxaas ka mid yihiin maaha waa gemstones marka gemstonku muxuu yahay inta aynaan waxa ku jira wadamadan ka hadlin maxaa gemstone loo yaqaan waxa loo yaqaanaa substance ama wax natural ah oo aan bani aadan samaynin ilaahay sameeyay leh qurux aad u qurux badan adayg iyo adkaysan badan leh oo duruufaha isbedelaya ee meesha ay taalo ama ku samaysan tahay u adkaysan kara qiimahana waxa u sii yeelaya waliba quruxda iyo adayga ama adkaysanka marka laga yimaado waa inuu naadir noqdaa haddii مثلا tusaale dheemanta oo loo qabo inay ugu fiican tahay waxa macdan jira markay wanaagsan tahay waa run iyada ugu fiican
haddii ay meel walba sida quruuruxa u taalo cidina ma qaadateen waxbana laguma faleen marka sidaas saas definitionka marka waxaanaynu raadinaynaa waa quruxda waa adayg adkaysan iyo inuu naadir noqdo maxaa marka waxyaalaha qurxiyo ka mid ah waxyaalo badan oo midabku ka mid yahay iyo effects optic effects fara badan oo kale oo xitaa aanan af Soomaali anigu ku aqoon oo aanan uba gelayn midabka markaynu u nimaadno macdankii aynu nidhi saddexdaas uu leeyahay marka aynu u nimaadno midabka waxa u sameeya inta badan 12 wax oo midabka mineralska u sameeyaa jira bari aan dhulkii tagay waa qaar waxay war waxan kan ma garanaysaa de oo miyadan sidaa ku garanayn war sidaa laguma garto yani qofka ku yiraaha waxaan midab ku gartay wax hal dhifa oo aad waliba geologic context kiisana taagantaho garanaysid baad midab wax kaga sheegi kartaa laakiin waa waxba midabku waa qurxiya laakiin macdanka laguma garan karo tusaale wanaagsan haddaan idin siinaya haddii la idmo marka waxaa sameeya midabka laba qaybood baynu ka hadlaynaa waxa midabka sameeya waa transitional elementska periodic table-ka groupka la yiraahdo transitional elementska oo iyo wax la yiraahdo color centers oo color centersku marka waa ka gudbaya markiiba waxa weeye ama waa electron ampere aba ka shaqeynaya hawsha wada ama waa gap oo defect structure-ka mineralka ku sameysmay oo defect markuu sameysmayay meesha wax kale ama wax ka aan element ama atom baan gelin wuxuu baa kharibmay marka taas waa marka uu color center-ka la yiraahdo halkaas color baa ka dhasha bahalahan elementska la yiraahdo transitional metalskuna waxay sameeyaan colorka inta badan 12 wax baa colorka mas'uulka ah baan idin laakiin saddexdan labada waliba mid aynu kala saarayno laba ka dhigayno baanu inta kale u geli maayo marka colorka waxa keenaya marna elementsku structure-ka macdanka ayuu ka mid yahay oo waxa la yiraahdaa idiochromatic waa macdan structure-ka elementku macdanka ayuu ku jiraaba isagaana sabab waa colorka dhowto aynu arkayno ama qalab kale lagu arkayo ama indhaheena lagu arkayo marna waxa la yiraahdaa allochromatic oo wuxuu ugu jiraa impurities ahaan yani xoogaa yar oo meelaha galgalay oo iska aan laakiin structure-ka ku jirin marka tusaale waxaynu soo qaadanaynaa waxa jira macdanta aan dib ugu laabtee muhiimka ah saddexda ugu muhiimsan oo markay de wanaag noqoto waa diamond iyo macdankan la yiraahdo corundumku waxa laba nooc buu kala baxaayo hadhow mid qaybo badan u sii kala baxo oo la yiraahdo sapphire iyo maxay ahayd mid baa malaqay safiro waa ruby labada marka iyo group la yiraahdo bril oo aynu hadda ka taabanayno emeraldka marka waxaanu soo qaadanaynaa brilka oo kale bal hadda colorka waxaan idin tusayaa bal in macdan lagu garto midabka inay adag tahay brilku waxa weeye macdan dhowr macdan waxaa ka mid ah emeraldka aquamarineka heliodor mid la yiraahdo waxaa ka mid ah isna morganite iyo mid bixbyte iyo goshenite marka goshenite-ku waa colorless waa bril aan color lahayn maxaa colorkii u diiday waxa u diiday elementskii aynu nidhi transitional metalskii ayaan gelin structure-kiisana kuma jiraan impuritiesna maaha marka color ma leh emerald baa yimid oo ah kan cagaarka ah oo dadku aada u jecel yahay oo aada loo yaqaan especially chrome iyo vanadium baa colorka u sameeya gaar ahaan chromium vanadiumkuna marmar buu qaybo ka meelo kamid a waxa la helay inuu vanadiumku ka mas-uul yahay ama ay ku wada jiraan marka waa cagaarkaasu waxaan ka hadlayaa macdanka waa bril chemicalina waa the same mineral waxa aan ka hadlayaa
waa BE3AL2SI 3 the whole 6 marka waxaa jira mid kamida oo kale oo la yiraahdo morganite waa the same structure the same mineral manganese baa kalarka u sameeya waa blue waxaa kamida mid la yiraahdo heliodor oo yare yellow u dhow iron 2 and iron 3 baa kalarka u sameeya aquamarine oo macnaheedu yahay laatinka waa agua waa biyo marine waa badda waa kalarka badda ay leedahay iron 2 baa u sameeya kalarka midkan aynu nidhi bixbite oo casana waxaa kalarka u sameeya manganese laakiin 3+ ah ka ugu horeeya aynu nidhi goshenite-na kalar male isagoo intaa midna ma gelin marka kalarku inuusan morganite-ka kalarka waa ka boodaan u malinaya waa pink kalarkiisu marka kalarku inaanu waxba yani aan lagu garan karin macdanka halkaa macdan ee halkaa structure leh halkaa chemical composition leh dhowrka macdan nooca aynu xusnay mid waliba kalar gooni uu leeyahay mid walbana transitional metal galay structure-ka of impurity ku ah baa kalar gooniya u sameeyey waxaynu u gudbaynaa marka kuwan la yidhaaho idiochromatic wuxuu ku jiraa elementka kalarka ka mas-uulka ahay structure-ku ku jiraa waxaa kamida macdanka la yidhaaho garnetka qaar kamida mathalan spermatite oo kalarkiisu orange yahay manganese baa ka mas-uula waxaa kamida uvarovite oo isna garnet ah waa chrome cagaar buu ka dhigaa waxaa kamida mathalan mid kale haddaynu u tagno spinel isagana chrome baa wuxuu ka dhigaa red rubiga waa la mid oo corundumka kamida chrome baa red ka dhiga marka elementka meesha gelaya iyo compositionku iskuma xidhna elementkuna maxaa leeyahay colorkuna mineral ma tilmaamo inta badan waxba ma sheegayo quruxdiisa un baa lagu raacaa marka waxaynu u gudbaynaa macdanta mathalan wadamada tan laga hela oo aynu u malaynayno de marka mid laga helo intaa wadamo maqan intay yihiin waa 8 9 miya 1 2 3 4 5 intii aan tiriyay aad xasuusataan Kenya Tanzania Mozambique Madagascar Sri Lanka India Australia Ethiopia iyo Antarctic qaybta waliba South East macdanta intaa laga helo mid kamida meelaha kalena waa qiyaasayna in laga helo dadka geologically waxaan bartay marka maxaa laga helaa mathalan meelaha aad loo baaray waxaa kamida Sri Lanka waxaa laga helaa corundumka spinel prill oo gurubadiisii leh garnet oo gurubadiisii leh opal tourmaline topaz apatite quartz oo gurubo badan leh iyo zircon meelaha wadamadan markaa qaarna waa aad baa loo exploit gareeyey waxay ku jiray qaar badan waa lagala baxayba qayb meelahan waxaa kamid ah Madagascar oo kale waxbaba laguma reebin digada laga dhigay waa la baabiyey wadankii Kenya iyo Tanzania iyo hadda laga shaqeynaya Sri Lanka qudheeda aad baa loo cunay Indiana ku dar marka Soomaaliya markaan u soo noqdo waxaynu rajo ka qabnaa intaas oo macdan inay ku jiraan inta aan tiriyey deemanta wadamadan aynu hawshu arrintan aan ka sheekeynaya metamorphic belt aynu wadaagno waxaa laga helay 3 keliya Tanzania India iyo Australia marka waxaan idinka saarayaa horta xanuunka la yiraahdo deemanta haddii alla idmo Soomaaliya Soomaaliya deeman kolley anigu kama raadiyeen
sababtu waxa weeye deemanta adduunka laga helay oo dhan dacdeedu waxay u dhaxaysaa 3 bilyan iyo 300 sano iyo 900 sano waa mid saddexda wadan aan idin sheegay dhagxanta deemanta laga helay da'da waa ka weyn yihiin waa groupka waa 3.3 bilyan ilaa 900 milyan Soomaaliya markaynu soo noqono dhagxanta ugu da'da weyn waxa weeye 900 milyan 900 milyan marka possibility uu deeman aynu kaga raadino Soomaaliya waan maqlaa dad badan oo yiraaha halkan ay ka booday dhowr nooc baanu helay laba bahalkii baanu helay dhowr deeman aanu helay xabadi kama jirto deeman aynu hadda inagu ognahay ama anigu as a professional aan ku tilmaami karo Soomaaliya saansaankeedii male dhagxanteedii male aan idinku celiya deemantu waxay ku samaysantaa dhulka hoostiisa meel dhulka korkiisa u jirta ugu yaraan 150 kilomitir ilaa 200 oo kilomitir oo dhulka hoostiisa waad qiyaasi kartaan halkaasay ku samaysantaa waxay ku samaysantaa laba nooc oo dhagaxa kaliya inta hadda la og yahay weligaan cilmiga marna ma wada hayno waxa la kala yiraahdaa peridotite oo waxay ka yimaadaan mantalka qaybta moltanka ah iyo dhagax la yiraaho eclogite oo isagu metamorphic ah laakiin high grade metamorphism pressure iyo temperature aad u sareeya ku samaysma dhagxantaas inta badan dusha deeman lama timaadaba meelay ka jiraan ha laakiin midna deeman anu kale kuma ogi marka deemantii ku samaysantay 150 kilomitir ama 200 kilomitir ugu yaraan iyo pressureka base miisaankaasu leeyahay aad qiyaasi kartaan waxa marmar soo qaada oo dibadda keena volcanic pipes waxaan aad maqasheen la yiraahdo kimberlite iyo nooc kale oo la yiraahdo lamproite kuwa ayaa intay dhagaxii deemantu ku samaysantay soo maraan oo soo jiidaan iyagoo liquid ah ayay waxay yimaadaan surface-ka ama meel ku dhow ama banaanka u soo baxaan waa volcanic normally laakiin deemantu inta badan qaybta soo baxda lama socotee marka erosionku ku dhaco on baa loo tagaa xoogaa meel ku jiraan marka labada nooc ee dhagxanta ahna Soomaaliya meel laguma sheegin waxa keenay ma jiraan da'da deemanta la qiyaasay oo la hayo oo dhan lama qiyaasina waa maxay ahayd waa dating baa lagu sameeyay caadiya waa absolute age maaha xitaa relative age waa 3.3 billion to 900 million dhagaxa Soomaaliya ugu da'da weyna waa 900 million marka yani waxa isku beegi karaa iska yar ka 900 million ka jiray inay deeman dhagxantii dhali laga heli lahaana ma jirto meeshii marka iyada halkaasaynu iska dhigaynaa deemanta anigu as far as I know banaankaasaynu kaga tegaynaa ku xisaabtami mayno waxaan kale oo waxaa deemanta dadku markaa ku khaldi karaa macdan fara badan qofku markaanu aqoon wuxuu ku khaldi karaa nooc ka mid a quartzka oo la yiraaho hyaline ama hyaline waxaa lagu khaldi karaa macdanka la yiraaho topaz oo Soomaaliya laga helo waliba ku badan marka uu colorless ka yahay isagana waa lagu khaldi karaa waxaa lagu khaldi karaa macdankii aynu ka hadlaynay brilka aynu nidhi waa noocyo badan oo kala duwan baa element kala duwan u sameeyaan nooca goshenite la yiraaho oo colorless ka brilka isagana waa lagu khaldi karaa waxaa lagu khaldi karaa zircon waxaa lagu khaldi karaa nooc ka mid a sapphire-ka corundumkii aynu sheegnay oo la yiraaho leuco sapphire waxaa lagu khaldi karaa garnetka qayb ka mid a grossular garnet oo isna aan color lahayn waxaa lagu khaldi karaa spinel waxaa lagu khaldi karaa waxa la yiraaho natural vitreous
ama video naturale aanu halkan nidhaahno ama artificial ba ah yani waxaa laga yaabaa quraarad 100 sano meel ku jajabtay baddu intay qaaday ama biyo geeyeen ama webi geeyey inay 100 jeer xeebta iyo maalintiiba saa ugu soo noqoto dabeedna isqorto de qofku markaanu aqoonin bahal yar oo dhalaalayo kaale araga oo buu ka helayaa oo hadduu doono color lasa marka taana waa lagu khaldi karaa iyo kuwa kaloo badan marka dadku waxyaalahan ay arkayaan ee dheemanta moodayaan inta badan waa macdanka noocaasa intaa aan tiriyey iyo kuwa kaloo badan oo weliba Soomaaliya qayb ka mid oo weyn laga helo marka waxaa de u malayn maayo hadda inay dhegaysanayso cid ka shaqaysa ama dheeman baadha laakiin de waxaa jira qalab yar oo haddii qofku iibsado la awoodi karo laakiin de waa inaad macdankana aqoon u leedahay qalabkana isticmaali taqaan oo markaa ku caawin kara inaad garatid waxaanu inuu dheeman yahay iyo in kale ama de aad garatidba mar walba macdanka uu yahay haddii cid u baahani jirto jaamac waa ila soo xidhiidhin karaa qalabka magacyadooda iyo maxay ahaydtay beelaha laga helayo haddii cid u baahani jirto marka dheemantii iyada halkaasaynu dhigaynaa kolle aniga waa aqoontayda iyo aragtidayda mar walbana waxayna hortaala wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliila intaa wax cusub baa la ogaanayaa dhowaan waxaan meel ka akhriyayey meel Pacifica xigta oo Mareykanka in dheeman laga helay meeshu malaha baa la yiri dhagxantii ay dheemant ku sameey jirtay kuwii soo qaadi jiray volcanic ahaana male marka weli lama garanayo baan akhriyay anigu meeshay ka timi dheemantaas de waa laga yaabaa in geelu inoo dhalay inagana dheeman waa dhow laakiin dheeman caadiya oo maanta anigu aan intaan tago ka raadin lahaa Soomaaliya ma jirto iyada halkaasaynu dhigaynaa waxaan jeclaan lahaa iyana inaan idin xasuusiyo waxaa jira macdantan aan ka hadlay mid ka mid a garnetka waxaa jira hadda dadku moogtahay waa la iibiyaa dhulkeeni waa la guraa laakiin dadka gurayaana wax badan kama faa'iidaan inagiina waa layna dhacaya waxaa masalan aad ugu badan dhulkeena macdanka garnetka la yiraaho garnetka marka qayb ka mid a oo la yiraaho saborite oo 70-nadii laga helay East Africa Tanzania iyo Kenya halka ay xuduudka ka leeyihiin waa cagaar haddii cidii maqlayso waxaan ku dhex jirta kalarkiisu waa cagaar aad buuna u yar yahay inta badan isagoo weyn lama helo saborite waa garnet grossular garnet waxaan idiin sheegi lahaa karadkiisu adduunka maanta wuxuu ka joogaa $10,000 maaha dheeman maaha bril maaha corundum maaha wixii wanaagsanaayo aynu naqiin maaha waa garnet waa green $10,000 buu karadkiisu joogaa maanta karadku waa imisa waa 1/5 of a gram marka ciddii faraha kula jirta waxanay waa iga talo walaalayaal waxaad isku daydaan inaad la xidhiidhaan dad Soomaaliya oo waxan yaqaana oo idinla taliya oo idinla eega oo xitaa idinla iibiya waxan dad baa ixtikaar ku haysta niman yuhuuda baa ku haysta Yurub oo kale waa 10 ama 20 dukaan oo isu sheega war intaa ka siiso haddii kale halkaa ka tago telefoon bay isu diri karaan oo adoo macdankiisita oo 10,000 jooga lagu oranaya 1,000 ama 500 inta aad dukaan u tagaysid isku wax bay ku oranayaan ilaa way wada hadleen marka qofku markaanu aqoon aakhirka kuma rarnaanayo 500 buu iska qaadanaya ama 200 wixii lagu yiri ilaa wuxuu ku sameeyo garan maayo dhulkii loo tilmaamay oo dhan tagiyo isku price baa lagu yiri marka waxaan ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeed kullayba haddaynu dhulka dhacayno war dadka Soomaaliyeed waxaan yaqaan la xidhiidha dhagaxa yar ee cagaarka ana please ilaaliya ogaada yaan lacag ka yar inta la idinka siisan karadkiisa waxaan kaloo idinku darayaa
waxaa jira macdan la yidhaaho opal waxaa laga helaa wadamadan hadda aynu tirinay waxaa laga helaa Ethiopia iyo Australia. Ethiopia gobolada Shewa iyo Wallo ayaa laga helaa, midna 2008 kii baa laga helay, midna 1990 kii baa laga helay. laakiin kan Ethiopia iyo mid dhulkeena laga guro oo aan adduunka inta badan laga sheegin ilaa xilligii faraacinada la guri jiray. marka adduunka waxaan ku dhex jiraan ka ogaaday in opal badan lagu gado suuqa adduunka oo Soomaaliya laga keenay. war isagana please waa dhagax aad qaali u ah, dhulkeenana aad ugu badan oo waliba meel walba laga heli karo. isagana ogaada please cid la xidhiidha taqaana waxan oo waxa uu joogo at least hala idinka siisto. oo haddii kale qofka Soomaaliga ee waxaan idin sheegaya ama idin darsaya isaguna waxbuu ka faa'iidayaa, idinkana la idin dhici maayo oo xaqiini wixii baalku joogay baad qaadanaysaan. marka taasna waa iga digniin labada macdan opal iyo saborite oo cagaar ah oo garnet ah, labadaasna ogaada. marka macdankii aynu u baahnayn inaynu ka hadalno waxaan idin idhi Soomaaliya no diamond ha ku xisaabtameen. kolley anigu haddeer kuma xisaabtameen, waxa la dhaliyo oo mar dambe timaada ama la helo mooyaane dee waxa ciidda ku qarsoon oo hoos jira waxa ma ogin. inuu volcano soo baxaan ama meelaha laga helo aan weli la arag ama erosion daad waayadan waata duufaana iska jiraan oo meel uu fujiyey wax ka soo muuqdaan ka yaab, laakiin male rajo deeman Soomaaliya male haddeer. wixii kale waa idinku celinaya waa corindum oo safir iyo ruby ku jira, waa macdan aad qaali u ah. bril waa macdan aad qaali oo noocyo badan leh, especially waa qaali weeye emeraldka. marka laakiin kuwa dadka lacag aan aad loo aqoon dadka lacagta yar laga siisto waxaa kamid ah heliodor oo ah ka yalowga, brilka yalowga, iyo aquamarinka oo biyo badeedka kalarkiisu yahay, garnetkii oo ciidda ka badan dhulkeenana aad uga buuxa, tourmaline, topazka oo colorless iyo mid color leh wale blue iyo colorless u badan, apatite oo green u badan inta la helo haddeer dhulkeena, quartzka oo noocyo badan oo fara badan isaguna leh iyo kalaro kala duwan, isagaa ugu jaban, iyo zircon. intaan anigu ka warhayo intaa wadan ee hadda la tiriyey, Ethiopia war kama hayo, Australiana war badan kama hayo, laakiin inta kale macdantan aan sheegayo badankoodana waa laga helay. kii aan laga helinna waa huba in laga helayo, ama haddeer ha laga helo ama 10 sano kadib ha laga hele. marka saasaynu ugu xisaabtamaynaa. dhulkeenu macdan badan buu leeyahay, intan kuma koobna, laakiin waxaan ka hadlayuun Mozambique, metamorphic belt iyo dalalka aad correlation intaad eegtid war Kenya maxaa laga helaa ama Tanzania maxaa laga helaa. marka Tanzania diamond baa laga helaa waa run, laakiin waa meel kale oo Karaton meel la yiraaho, waa diamond gabowday dacdeedu 2.5 billion years. dhagxan ka weyn baa laga helaa taa dhulkeenu male nooca dhagxanta at least exposed maaha outcropping, dhagxanta outcropping banaanka joogta male noocaas 900 baa ugu weyn. marka diamond halkaasaynu iyadana ku ilaaweynaa. waxaan u malaynayaa wixii kaloo aad u baahataan iyo qalabka lagu kala garan karo ciddii u baahan inaa maxay ahayd war uga baahan ama meelo laga gadan karo iyo qiimaha uu yeelan karo qalabku. laakiin waa ku celinaya wuxuu u baahan yahay qofku de inuu waxa yaqaano. haddaan anigu hadda soo qaato alaabta dhakhtarku ku shaqeeyo oo cusbitaal la tago de waxba kuma qaban karo, waayo waxaan ku raadinayo ma garanayo. marka qof yaqaana iyo qalabkii oo la isticmaalo dad badan baynu ka maarmaynaa. mid kalena waa idin sheegaya, dadka indha yartaahi
aad bay waxaan uga shaqeeyaan aad bay ugu jiraan waa dadka sida fiican u qora dhul baa jira مثلا Thailand iyo waa meelaha aadka looga shaqeeyo waxa dhulkii u dhawaayo dhan waa la soo xaalufiyay Afrika hadda qofka dhoofa inda yar nooc kasta ha ahaado Philippines ka soo bilow China maxay tahay Taiwan balaaynka xaggaas oo waxa laale waxa inuu inda yarta u naqaano waxaanay ka shaqeystaan aad ugu jiraan waa dhow within 10 years waxaan u maleynayaa quraca Afrika ku yaala iyo inda yarta lugaynaysa inay isleekaanayaan waayo resourceski dhinaca Asia waa soo dhamaadeen almost ama dhagxantii loo baahnaa dhul aad u adag oo soo saarkoodu lacag badan u baahan yahay bay gashay wax ma baaharay kuwa un baaharay meelihii adka laakiin Afrika wali wax meela fudud iska yaal baa laga helaa oo buuxa nimanka iska ilaaliya hadda dhulkeena dhowr jeer oo aan markaan webabkan Soomaalida galo dhowr jiina ah oo meel maraya adigu bal waxay doonayaan sheeg waxaas laga shaqaysanaya marka tuugo iyo khiyaamo quraana lagu jiraa war hadii tala lahayana anigu waxaan oran lahaa dadkan geologists kan Soomaalidu war association samaysta oo dadka aan caawino waxaan ku dhex jira ama ka shaqaysanaya inagana leena dhacay dadkiina waa la cameynaya waxaanina dad kala ku taajiraya marka qoladaana waa idin ka digaya iska ogaada nimankaasu waa soo shaqo tageen adduunka intoodina waa soo liqeen waxaan u maleynayaa wixii de su'aalaad qabtaan maanta intaas aynu ku joojinaynaa time-ka la siiyay baa inta ahaa warka oo kooban dhulkeenu xagga macdanta waa barwaaqo ilaahay haynoo barakeeyo laakiin walaalayaal tuugadana aan ka ceshano dalka sidaynu u dejin lahayn aan ka wada shaqeyno intaynu sidan nahay de haadu yahan raawoon baa inaga dhergaya waad aragteen oo maxay tahay waxaan arki jiray qaalinta iyo baarqabkaynu wada dhoofinay ilaa aqli ma lehina waxa moodaa in leena yiri baabiya dhulka iyo dalka iyo dadkaba wanka sumalka iyo sabeentana waa wada dhoofinay orgigii qoorka ahaa iyo ceesaantina waynu dhoofinay marka aqligeenu waxa weeye maanta cun laakiin berita wiilkaaga wuxuu cuni doono kama inaan fakirno weligeen wixii waa la dhaqdo waa dhow xoolaha inaga iibsan maayo marka macdantaas ay inoo hadhay badiina waad ogtihiin oo dhimatay aan ilaashano waa idin salaamaya wassalaamu calaykum wixii su'aalaana diyaar baan ahay wixii de aan intaal u hayo ka jawaabkeeda ama aan aqoon u leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu